السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaka waxaan rabaa fariintana inay ahaato waxay ku socotaa madaxweynayaasha iyo golaha wasiirada. madaxweynayaasha markaan ku leeyahay madaxweynaha dowladda haddaan lagu leeyahay federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka siyaasiyiinta ayay ku socotaa. fariintii shalay waxay ahayd aqoon-yahanada, laakiin aqoon-yahanadu de intaan hadda aan sheegayba way ku dhex jiraan. haddase dadka xilka u haya ummadda wey waxaan ka hadlaynaa anagu oo dowliga ah marka ay hadlayaan oo ay bulshada horteeda taagan yihiin oo u gudbinayaan fariimaha waa in ay u meeldayaan hadaladooda. maxaa yeelay sharcigii waddanka weeye, sharcigii waddanka weeye waxay ka hadlayaan, waxay maamulayaan oo dadku ku hogaaminayaan waa sharcigii waddanka weeye. markaad hadlaysana hadalladaadu sharciga dalka in ay waafaqsan yihiin weeye. sideedaba haddii wax sharciga waddanka ka baxsan afkaagu ay ka soo baxaan waxaasi tilmaan qalad bay samaynaysaa ama fariin qalad bay samaynaysaa. sideedaba waxaanan laga dhexwaayayna markuu qof mas-uula meel soo istaago oo hadlayo oo uu dhalinyaro tusaale ahaan la hadlayo, waxaan meesha laga saari karin oo jira qabyaaladda sidii dadka looga nahin lahaa. macnaha eegada meesha ayada marka wax badan baa kaaga lumi kara. waa inaad u diyaar garowdo markaad qadaas yeedhsiiso oo tiraa macnaha qabyaaladaas ka fikir meeshaas waxaa ku jiri kara inaad ku xisaabtanto wey. warta bilmetel haddaad bakhaaro leedahay, macnaha bakhaaro albaabo kala duwan leh, furayaal kala duwan bay leeyihiin. marka albaab kasta furaya, laakiinse albaabadoo dhan hal fure ma wada furo oo hal fura keliya intaad wadato macnaha albaab kasta hal furo un ma aha. sidaa darteed hadaladuna saas weeye, waa uu hadallo isfurayo oo furiin waxa weye hadalkaagu marka waa in furo kasta meeshiisa aad gelisa wey. markaad dhalinyarada leedahay macnaha waa in qabyaalada laga xoroobo. markaad leedahay waa inaadan meeshaas ku ilaawin waxaad la dagaalamaysa qabiil inay tahay. waa inaad u sheegto waxaanu la dagaalamaynaa anagu qabiil ma aha, waxaanu la dagaalamaynaa waa qabyaalad. qabiilku wuu jirayaa, wuuna jiri doonaa. qabiilku waa waxa aad ka timaadeen oo ilaahay idinka soo dhex abuuray. sidaa darteed waxaan idiin sheegaynaa waxa weeye qabiilka burburiya oo dhismaha qabaliga ahee aanu ku dhisannahay hala burburiya maaha. waxaanu idiin sheegaynaa markii qabyaalada ha laga xorooba aan u leenahay. qabyaaladu waxa weeye xiqdiga iyo xumaanta iyo xaasidnimada iyo haddana naceebka qabiilba qabiilka kale uu qabo, qofba qofka kale isagoo qabiil ka urinaya. waxyaabaha noocaas ah oo u qabo inay dadku ka xoroobaan oo maskaxiyan ooga xoroobaan oo mabda'iyan ooga xoroobaan inaad u sheegto weeyo. waxaa dhalinyarada inaad u faahfaahayso ila af soomaaliga adigaa iska leh inaad ku dhex raaxaysato si fiican ugu hadasho weeye. waa inaad tirahdaa waa in qabyaalada laga xoroobo. haddaan qabyaalada laga xoroobin macnaha ma muuqanayso, waxqabadkeennu ma muuqanahayo. sidee baanu marka waa qabyaalada ha laga xoroobo. markaanu idin leenahay qabiilka ha laga xoroobo ma aha, ama qabiilku ha burbura ma aha, ama waxaan la dagaalamayna qabiilka maaha. taas baanu idiin sheegaynaa anagu. waxa lala dagaalamahayo waxa weeye qabiil lalama dagaalami kartid. qabiilku waa meeshii warshadii dadku ka imaanayeen. waa qabiilkee dad iska socdo oo ma waxaad rabtiin macnaha dad iska dhasha oo aanan haddana sumad la-aan iska dhasho oo meher la-aan iska dhasho. ilaan dadku markay ismehersanayaan laba qof baa ismehersanaya oo dadku abtirsiinyay ku imaanayaan. qabiilka halkaas weeye. mise waxaad rabtiin dadku inay is isticmaalaan sidii xoolaha oo marka waxaan qabiil ahayn aad samaysaan. haddaad waxaad samaysaan soo bulshadu burburi mayso oo isma guurguursanayaan dadku bilaa sharci la-aan. macnaha ninayaan isma guursan karaan oo naagna isma guursan karaan. waxa dadka sidaa sumcadda ooga baabi'inaya soo waxaas ma ah. dadka qabiilka u sheega qabiilku wuu jirayaa, wuuna jiri doonaa, waana la xurmeynayaa. maxaa yeelay isimaa jira xurmaysan oo haddaanan laga waayinay aan qabaa'ilada ka soo jeedo dowladda systemka dowladdana ku xidhan, dowladda kuwii sameeyey. marka
waa inaad dadka u sheegto kuwa aad la hadlay nafteeda waa qabiil bay ka imaadeen marka u kala saar qabiilka iyo qabyaaladda labadaa erayaan la kala reebin si hadalkaagu uu waafi u noqdo waa inaad u sheegto waa in qabyaaladda laga xuroobo micnaheedu maaha waa in qabiilka laga xuroobo maaha qabiilku waa inuu jiro oo adag yahay oo jiro because waa sumcadda dhaqanka waxa adkeenaya qabiilka wey shakhsiyaadku waxyaabaha ay sameynayaan qabiilkooda kontaroolo oo in xumaanta qabiilka ay ka eegaan baa lagu kontaroolaa shakhsi kasta nin ya naagba taasi waa waxa aan ku sumcadaysannahay oo aanu Soomaali ku nahay oo uga bedelanahay qowmiyadaha kale waxaan uga bedelanahay wey waa waxa dhaqankayagu dhaqan tight u yahay oo haddaan laga waday Soomaali kaliya ay ku dhex socoto oo wax kale oo ma garanaysaa disturb kareen kara uusan u jirin marka qabiilku wuu jirayaa wuuna jiri doonaa wuuna sharfan yahay waana in la isku jeclaado oo qabiilka kale uu xurmeeyo oo sidii la isku xurmeey jiray la isku xurmeeyo oo dhaqanka la isku xurmeeyo oo taxiga la isku xurmeeyo taxiga ma in la Soomaaliga hore oo dhumay baan ka hadlayaa badanaa mogta taxiga lagu sheegay in la istagsado la isguursado way macnaha la isku xurmeeyo xididka la isku xurmeeyo Soomaalida garan haddaan laga waayinay xurmada noocaas inay jirto way oo xirbeegtuda la isku xurmeeyo xirbeegtuda is xurmayso oo ismadu is xurmeeyaan sidii weligeedba jiri jirtay hadda wixii waa la qarameeyo modification baa la sameeyo sharcigii ee dawliga ahaa iyo dhaqankiiba hadda ayaa la isgelinaya oo socda marka taasi waa inay muuqato oo dadka loo sheego say muuqanaysaa waa in dawladda federaalku ay qasri u samayso ismada qasri inay u samayso way oo ismada qabaa'ilada maanta ismada oo dhan oo heer qarana macnaha oo heer federaala waa in qasri loo sameeyo maamul goboleedyadu waa inay qasri u sameeyaan ismada waa in la xurmeeyo waa in qorshaha iyo systemka dawliga ay ku dhex jiraan way waa sidaasaa bulshada iyo dawladda la isugu xidhi karaa waa inaad garanaysaan silsiladda isku xidhaysa bulshada iyo dawladda inay ismada tahay maskaxdiina geliya waxaad raadinaysaan wax ka baxsan systemkii dadka wax ka baxsan baad raadinaysaa waxaad rabtiin inaad jijibisiin systemkii dadka oo aad wax kale oo lagu daalay oo mar hore lagu daalay oo in qabiilkii lagu burburiyo la rabay oo wixii ay shaqeyn waayeen ma waxaan shaqeynaynin uma dabada haystaan adinka maxaa idinka qaldan waa inaad u jeedsataan qabiilka in la qarameeyo taasi midnimada ummadda halkaas ay ka imaanaysaa nabaddu halkaas ay ka imaanaysaa isdhaxgalku halkaas uu ku imaanaya isqadarinta halkaas ay ku imaanaysaa ma garanaysaa systemka waddanka in la dejiyo halkaas ay ka imaanaysaa somaynaan garan marka waxaan idiin sheegaynaa oo idiin sheegaynaa bulshada markaad wax u sheegtay madaxweynayaasha iyo haddana golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo siyaasiyiinta markaad ummadda wax u sheegataan oo qabyaaladii waxaad ka hadlaysaan kala cadeeya qabyaaladaad la dagaalamaysaan ma qabyaalada ficilka oo qoodh xunba mise waxaad la dagaalamaysaan waa qabiilka u kala sheega dadka haddaad qabiilka la dagaalamaysaan meeshaad ku socotaan meel qaldan wey waa meel qaldan inqilaab wey waxaad wadiin inqilaabkaana ma shaqeynayo waa fikrad macnaha reer Yurub ay idin soo dhiibeen oo bulsho burbur inaad ku sameysaan oo bulshadeena haddii aan laga waayinay ay noqoto sida caalamka maanta wadamada ilbaxnimada gaadhay sida ay bulshadoodu noqotay inay bulshadeena noqotaa rabtiin dad xoolo oo waxay doonaan iska sameynaya sidaa haddaad rabtiin sidaasi ma shaqeynayso wax soconayana maaha marka waxaanu idin sheegaynaa fariinta waxay ku socotaa siyaasiyiinta waxay ku socotaa madaxweynayaasha waxay ku socotaa golaha baarlamaanka waxay ku socotaa golaha hadaa laga waayinay fulinta ayay ku socotaa marka waa in dadka markaad wax u sheegaysaan hadaladiinu hadalla sharciga waafaqsan oo waafi ah qofku uu ka dhergi karo inaad haddaan laga waayinay at least haddii aadan inta soo istaagta aadan iska hadli karin oodan waxa aadan adigu is control karin wax qoran la imaw meesha markaad hadlaysana ha kala ilaawin furayaasha annagu waxaan ka hadlaynaa balaaqo oo balaayo u hadal oo macnaha talkative ahaw ma aha waxaan ka hadlaynaa wax way wax qodobaysan oo haddaan laga waayinay keyword intaad ku hadasho oo meel gal ah
sharciga aad ku shaqeynaysana waafaqsan inay ahaadaan wey dadkana waa inaad u sheegtaan xaqiiqda dhabta ah dadku si ay u fahmaan oo hadalkiina uga dhergaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu